السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا بقلينا وامو تك أنا كبران دانو جدول كان حالكن شاشة نوغا فرن سيدا الله سميست يمكن مديسة جدول كان وحا لدها employee attendance track لدها ودوغالك شقالها هيدها أما وساردها أما شركتها qaabka ay u imaadaan shaqada muxuu ahaa hadii ay yihiin present hadii oo macnaha ay joogaan hadii ay gooyaan ayagoo ama la ogeyn ba iska gooyaan ba iska maqan yihiin oo hadii ay leave qaateen oo muxuu ahaa fasaxii ay xaq u lahaayeen sanadlaha ahaa maalmo kamid hadii ay qaateen ku maqan yihiin oo war laga hayo iyo hadii ay xanuunsadeen oo muxuu ahaa xanuunkii ay dadka la soo socodsiiyeen oo ay maqan yihiin marka xanuunkii dartiisa ay la maqan yihiin marka waxyaabahaas ayaa sida loo dabagalo ama loola socdo ayaa lagu controla jadwalka noocan oo kale taa marka hadda aniga waxa ay samaysan oo kaliya bisha June oo bishanka hal bil weeyaan laakiin adigu waxaad samaysan kartaa ilaa 12 bilood waad samaysan kartaa sida hadda kan oo kale oo aan sameeyay dhowr bilood weeyaan oo ahaa kan January kana waa February intana kuwa kala halkaas sii jiraan marka waxa weeyaan jadwalkan xaggan waxa lagu qorayaa shaqaalaha magacyadooda lagu qorayaa halkan waxa ay ugu qoran shaqaalaha koowaad shaqaalaha labaad shaqaalaha saddexaad sidoo kale ilaa 20 qof weeyaan ayaa ka shaqeyso shirkadda marka biidan waxay ka dhigan tahay present qofka inuu joogo eedan waxay ka dhigan tahay absent inuu maqan yahay uusan dadna u soo sheegin aan war laga haynin fasaxna uusan qaadanin ama uu fasaxi asaga xaq u lahaa uusan qaadanin fasax rasmi u qaadanin leave-kan waxay bedelaysaa ay ka dhigan tahay qof oo maalmihii xaq u lahaa inuu nasto uu shaqada ka nasto shirkadda ay ugu tala gashay qayb kamid ah qaatay oo sida ku maqan astan waxay metelaysaa sick waa qof xanuunsan oo xanuunkiisa laga warhayo oo sida ku maqan okay xagan waxa weeyaan taariikhdii bisha June 30 ku dhamaataa 1 ilaa 30kii waka xagan hoose ku qoran xaga sarana hadii scale-ka sarana waxa weeyaan waa maalmihii saxda ahaa ee ku aadanaa taariikh kasta ama maalin kasta oo June ay leedahay bisha lixaad ay leedahay marka sidaa darteed xagana de magaciina uu sano saaran xagana bisha noo saaran marka jadwalkan waa dynamic marka macnaha waxa weeye waa isbedel u sameyn karaayo muxuu ahaa hadii aad wax aad ka bedesho muxuu ahaa uu is program gareyn karaa marka tusaale ahaan shaqaalaha koowaad oo kale halkan wuu joogaa maalinta koowaad ee June wuu joogay biya u qoran sidoo kale halkan wuu joogay taariikhda shanaadna wuu joogay lixaad wuu joogay toddobaad wuu joogay sideedaad wuu joogay kuwan aan saaray gaduudka ama xasanka aan saaray waxa weeyaan labada maalmood oo aan lagu talagelin shaqaalaha inay shaqo yimaadaan islaamka waa khamiista iyo jimcaha inta badan xaggan kaleetana waxa weeyaan waa sabtida iyo waxa weeyaan iyo axada sabtida iyo axada waa Saturday iyo Sunday waaye marka aniga maadaama computerkayga uu ku program gareysan yahay calendarka miilaadiyada kaas ayaan isticmaalayaa waxaan isticmaalayaa kan gaalada ayaan isticmaalayaa marka sidaa darteeda sabtida iyo axada ma imaanayaan meel kasta aad ka aragtay sabti iyo axad waxa weeye waxaan ka dhigay casaan marka waxaan ka wadaa waka colorkaas ayaan ka dhigay marka laguma talagelin meeshan inay mataqaana wax lagu qoroba ilaan maba joogaanba shaqaalaha inay imaadaan laguma talagelin marka June waxay ku bilaabatay jimcaha ku bilaabatay sabtina way ku dhamaatay marka sidaas ayay ka dhigan tahay marka shaqaalaha koobaad oo kale hadaan fiirino waad aragtaa ababa xagan markuu tirinayaa qofka inta B uu haysto halkan ku tirinayaa inta A uu haysto halkan ku tirinayaa absent uu haysto markii bisha dhamaato halkan la fiirinayaa oo jadwalkan sidan u dhameystiran bay nimanka HR-ka ay ku wareejinayaan waaxda lacag bixinta la dhaho finance-ka ku wareejinayaan finance-ka marka qaabkan iyo lacag ku siinayaan
qaabkana lacag lagu siinaa inta maalmood oo aad shaqaysatay oo keliya ayaa lacagta lagu siinayaa. marka waxyaabahan marka waa la kontroolaa. sababaha loo kontroolaa hadda waad iska garan kartaa oo shaqaalaha lacag badan kaga baxda hay'adaha iyo wasaaradaha iyo shirkadaha habada. sidaa darteed lacagtooda inay si xaq ah u shaqaystaan oo maalintii loogu talagalay inay shaqada imaadaan laga doonaya. marka hawshanna waxay mas'uuliyaddeeda tahay muxuu ahaa qofka HR-ka ah oo human resource officer-ga ama human resource manager-ga waxaa qaadaba u xilsaaran muxuu ahaa shaqaalaha yay mas'uulshiisa tahay mas'uulka ah hawshan inuu qabto. marka intaa kadib waxaan sameynaynaa marka alaabtan sida loo sameeyo jadwalka sida loo sameeyo ayaan guda gelaynaa. marka way fiican tahay qofka HR-ka ah inuu sameysan karo inuu Excel intuu la soo baxo iska sameysan karo jadwalkan oo kale control uu ku sameysan karo maxay ahayd shaqaalaha control ku sameyn karo si ay hay'adda lacag uga lumin ama qof si lacag uusan shaqaysanin uusan u qaadanin. tan kale haddii aad maamule iskuul aad tahay ardayda sidoo kale waad controli kartaa presentigooda iyo absentigooda controli kartaa iyo sick. marka kadib markaas leave meesha ka baxaysaa markaad arday ama iskuul wax la xiriira aad maamulayso iskuul ama jaamacad iyo waxay noqotaba leave-ka meesha uu ka baxaya ilaa qofka leave ma qaadan karo. laakiin macallimiinta sidana cuskana haddaad macallimiinta controlayso noocan oo iyaga noocan kuma controlayso ilaa saddexdaas way leeyihiin macallimiin leave ka qaadan karaan. okay laakiin ardayda waxaad ka controlaysaa present iyo waxaad ka controlaysaa absent iyo probably sick aad ka controlaysaa ama sigta xataa ma loo baahnaba labadaas ka controlaysaa inta badan. marka tan looma baahnayo. marka waxaan sameynaynaa marka waxaan u guda galaynaa sida loo sameeyo. waxaan furanayaa jadwalkan boggan aan iska furanayaa cusub. bogga markaan furto halkan ay soo baxayso Excel ay soo baxay. Excel markuu ii soo baxo sida igu soo baxo muxuu ahaa waxaan sameynayaa marka aniga inta good ama inta good ama saleska igu filan waa iska qiyaasi karaa. dabcan waxaan iska qaadanayaa okay eedaas oo ka tegaya waa meesha magacyada ii geli doonaan. marka halkan aan ka bilaabaan highlight gareynayaa ilaa inta igu filan aan highlight gareynayaa. anigu waxaa igu filan ilaa AI ba igu filan. AI oo 31 meesha iga filan. AI tan way fog tahay. okay soo laabo AI waa ka AI-daas ilaa halkaas igu filan aniga. markaan sidaa u highlight gareeyo marka waxaad sameynaysaa right click ayaad leedahay. right click markaad lahdo waxaad qaadanaysaa column width kanaad qaadanaysaa. meeshaas waxaad ku qoraysaa saddex markaad ku qorto okay aad leedahay. wixii way isku soo aruurayaan oo noocan ay ku noqonayaan isku soo dhawaanaya qaabkaas isku soo dhawaanaya qaabka macquul ku noqonaya. intaas markuu ku noqdo haddana waxaad sameynaysaa halkan aan taabanayaa sheetkii oo dhammaantiisa iyo highlight gareysmayo. marka kadib color aan isleeyahay aniga way anfacayaan iska qaadanayaa. colorkan hufan oo kale aan iska qaadanayaa. markaan qaato kadib waxaan haddana colorka ka saarayaa qaybtii intaan aniga u baahnaa ayaan colorka haddana ka saarayaa. waa ilaa waxay ii joogtaan uma ilaa halkan weeyaan waa AI hoosaan u soconayaa. shaqaalahayga tirada waan iska qiyaasaa anigu 20 aan iska qaadanaya inay shaqaalahayga 20 ay yihiin camal yaan iska qaadanaya ama 22 ama 25 ba iska dheh 25 iska dheh 25 shaqaalaan controlaya. intaas markaan qaado halkan aan isaga noqonayaa waan ka qaadayaa. marka waxaan dhahayaa no fee. intaas ay soo baxayso no control Z halkan waxbaan kaga daray. okay halkan way iga dhaaftay. marka waxaan sameynayaa waan iska tirayaa dhimaalaha taas waan iska tirayaa. marka halkayga ku soo noqonayaa intan marka aan sida kan sameeyo anaga qaybtan kaliya aan rabaa inaan geliyo jadwalkii noocan ahaa tan rabaa inaan geliyo. marka inta kadib waxaan sameynayaa taariikhda bishaan aan muxuu ahaa doonayo inaan maxay ahayd aan samaysto yaan aan ka fikirayaa. haddii tahay bisha koowaad meeqa maalmood ku jirtaa bisha labaad miya sanadkee waxaas dhan inaad taqaanaa waad iska garan kartaa. intaas waad garan kartaa waad iska garan kartaa. marka waxaad sameynaysaa halkaas aad isku program gareynaysaa. marka waxaan sameynayaa bishii ayada ahayd bisha June oo kale hadda aan sameyno June ma baahan waxaan sameynayaa July oo kale. July ayaan sameynayaa. July bisha 7
sanadkan 2018 yaan rabaa inaan jadwal ku samaysto halkan. Okay, marka anigu hal amaan sameynaya, hal bil kaliya aan sameynaya, laakiin hadhow adigu ilaa maadaama sanadka dhan waad samaysan kartaa ilaa 12 ama maalin kasta bil walba markaa dhimaato mid cusub waad samaysan kartaa si hadhow kugu dhamaystirmo. Okay, marka waxaan sameynayaa xaggan halkaas waxaan ku qorayaa meesha rabaa iskaga qoran karaa, laakiin halkaas waxaan ku qorayaa taariikhda July waxaan ku qorayaa July waxaa waaye 07 01 2018 taariikhdaasaan qorayaa waa 1 July bisha 7 2018 halkaa ku qorayaa. Excel iska ilaali, anigu kayga MS Excel 2016 isticmaalayaa bishaa soo horeyso. Okay, haddii aan right click intaan aan ku tusiyo format cells aan dhaho oo halkan numbers aan tago and then custom tago, halka waxaa ku qoran month day year ku qoran. marka waxa soo horeeya wuxuu noqonayaa waxa soo horeeya waa bishii. marka sidaa u qorto waxaan sameynayaa inta kadib waxaan sameynayaa f tan halka f ku qoranta hoosteeda imaanayaa xagee kaga aadan tahay number 5 kaga aadan tahay camal. qasab maaha inaad meeshaas ka dhigato, meeshaas ka dhigi kartaa, laakiin anigu macnaha halkaas igaga aadan tahay waxaan rabaa ama intaa ka horeba waxaan sameynayaa kuwanaan sameynayaa. marka si fiican idinku tuso, waxaan sameynayaa halkan employee name aan ku hormarayaa. employee name markaan ku hormaro employee name waxay igu qoran tahay waxaan ku qorayaa halkan aan ku qorayaa number 5 kan ku qorayaa employee name waa meesha magacyada ii geli doonaan. employee name ii geliyaan marka waxaan leeyahay double click aan siinaa waxaas igu yar durqo. kadib inta waxaa ku jira fiirsamaqaan waxaa ku xigo B iyo A iyo L iyo S ku xigaan waa qaabihii. marka waxaan qorayaa bracket furi B halkaa ku qorayaa bracket kan xirayaa dhinaca kale aan u soconayaa bracket aan qorayaa then waxaan qorayaa A oo absentiga ah. hadaa rabto key u samaysan kartaa kuwan tan saan u qori kartaa then waxaan sameynaysaa S sidaan qorayaa intaas qorayaa. Okay, afartaa markaan qorto right click aan dhahayaa. right click markaan dhaho waxaan sameynayaa tan highlight garaya dhammaantooda waxaan dhahayaa right click markaan dhaho format cells and tigi alignment aan aadayaa kanaan qaadanaya. okay aan leeyahay so qaabkaas ay noqonayaan. markay qaabkaas ay noqdaan waxaan sameynayaa markaa ilaa inta oo kale color iska qaadanayaa color bag iska qaadanayaa oo soo kale iska qaadani ayaguna waxaan ka dhigayaa white. Okay, ayaguna white ka dhigaa waana bold gareynayaa. Okay, good. intaas markaan sameeyo halkan aan imaanayaa haddana. Okay, halkaas aan imaanayaa. halkaas markaan imaado waxaan dhahaa equal markaan waxaan click gareynayaa taariikhda markaan click gareeyo intaan dhahayaa. inta markaan dhaho meeshii Excel markuu afarta hash noocaas oo kale uu ku siiyo macnaheedu waxa waaye cellka uu yar yahay contentiga ku jira ma qaadaya. haddaan saa u jiido kale oo weli aan sii jiido taariikhda caadi u soo baxaysa. Okay, markuu sidaas oo kale ku siinayo hash ama maxay ahayd afar geeska wuxuu ka wadaa calaashan meesha boxkan yar lama dhanno baashan way dheer tahay ma gelayso ama ku wadaa ilaa wixii inta ku jira dhan baa inta ku soo qaadnay mogtahay. now anaga marka dhib ma lahan leenahay sidaas uma rabna taariikhda inay noogu gasho. waxaan rabnaa inay noogu gasho taariikh 1 2 3 ilaa 31 inay noogu gasho macnaa 1 2 3 tiro caadi. marka halkan aan imaanayaa dusheeda aan right click dhahaa intaan tuujiyaan right click markaan halkan aan imaanayaa waxaan qaadanayaa number waxaan qaadanayaa custom kan aan tegayaa inta waxaa ku qoran month day iyo year. month day iyo yeargaas oo aniga dayga bisan ka rabaan leeyahay dayda bisan ka qaadanaya. Okay, dayda bisan ka rabaa marka okay aan leeyahay marka 1 ay noqonaysaa. okay, dayga day waa 1 kowda bisha weeyaan. Okay, so intaan imaanaya haddana waxaan leeyahay equal meesha kowda ay ku qorneedaan tuujinayaa +1 aan dhahayaa. +1 waxaa waaye shift plus isla qabanaysa. so okay aan dhahayaa halkan waxay noqonaysaa 2 markay noqoto 2da kaligeedaan tuujinayaa. markaas halkaa fill handle kan qabana waan jiidayaa oo halkaasaan drag and drop aan ku sameynaa. marka 30kii waan buuxsaday marka 1 2 3 ilaa 30kii maalmood ay ku jiray bisha
oo July 31 ku dhamaataa marka halan isaga darsanaya dib malaha hal baan isaga darsanaya halkaas isaga darsanaya laakiin tan sidoo kale waxaan sameynayaa waxaan ku soo celinayaa iyadana sida kuwan kale ka dhigaya oo 3 dadsan ka dhigaya si ay igu soo yaraato qadaasna waan ka qaadaya waxaan dhahaa no fee okay soo diyaar marka waan ku darsaday marka waxaan lemon box aan gelin karaa ama anigu box ma gelin waxaan jeclahay inaan labada dhinac ka saaro inta sida u highlight gareeyaan labada dhinac ka saaraya waxay ahayd lemon ka saaraya kadibna color waxoogaa dark ah aan u raadsanaya ama waxoogaa hilbi noocaas oo kale kaas iska qaadanaya okay colorkaas iska qaadanaya noocaas ay ahaan insha okay perfect now marka waxaan sameynayaa marka okay marka inta kadib waxaan sameynayaa muxuu ahaa telefoonka inaga soo wacayaan okay dib mala inta kadib waxaan sameynayaa marka intaas mar waan buuxsaday maxay ahayd maalmihii oo dhan taariikhdii ilaa 31 hadda marka waxaan aadayaa xagga fiiri waxa ku qoran ayaamihii baa ku qoran taariikh walba maalin kasta iyo ayaanteedii baa isku aadan ayaantaas inaan soo saarnaa rabnaa marka sida saxdan inaan ku keenno waayo July bishii kowdeeda ayaanta ay ka bilaabanaysaa saxda inaan keenno waayo marka haddaan fiirino halkan waxa weeyaan kalendarkii caadiga hadda ii shaqeynaya waaye waa 10 June waxa weeyaan 2018 maanta aan sameynaya waaye marka taasaan tuujinaya click markaan dhaho kalendarkii ay soo baxayo waa kana soo halkan waa June hal maran inaan check u dhahayo waxa ay soo baxay July waxay bilaabanaysaa taariikh 1keeda July waa Sunday ahad weeyaan marka halkan waa inaan ahad gelinaa laakiin nidaam waa inaad mataqaanaa formula aad ku gelinaysaa qaacidada marka ay tusinaya okay soo halkan aan tagaya meeshan aan rabaa inaan geliyo halka inay xagga sare ka saftaan aan rabaa halka sare marka halkan aan tuujinaa halka markaan tuujiyo waxaan dhahaa equal eriga text ayaan qorayaa text markaan qoro tab ayaan taabanay tab markaan taabto kowdan aan imaanaya July kowdeeda bishii aan tuujinaya waxaan ka wadaa marka waxaan ka wadaa July kowdeeda ayaamaha way camal ayaanta ay tahay raadinaya marka comma then halkan waxaan ku qorayaa laba maxay ahayd two speech marks aan ku qorayaa then dd 3d ba halka ku qoranaya double speech marks hadana then bil xiran sameynaya then enter dhaya okay waxa soo baxay Sunday waana saxo hadaan fiirino kalendarka hadaan tagno July hal mar jeeg dhinacan u dheh July kowdeeda waxad weeyaan Sunday so waa saxsan tahay marka halkan aan qabanaya fill handle keen qabanaya waan jiidaa ilaa halkaas aan geynaa okay so perfect so waxaan sameynayaa marka intan color madow aan iska gashanaya hadaan rabo kana soo koobisanaya marka ana iska soo koobinaya intaas colorka madow aan gashanaya markaan gashado qoraalkan maxay ahayd qoraalkaasna cadaan ka dhigana casiin ana calan ka dhigaya kana sidoo kale asagana qoraalkaasna cadaan ka dhigaya so fontigana hadaan rabo iska yareysanaya fontiga hal mar sagaal ka dhiga ama 8 bay iga dhigo okay so quruxdaas ay noqonaysaa marka sida uu quruxsanaato waxaan sameynayaa marka inta waa diyaar samaaha inta soo diyaar so halkan aan imaanaya hadana inta hoose kuwan waxaan leeyahay color kala iska gashanaa ayaga color kala iska gashanaya colorkan gashanaya dabcan okay let me go with this kan qaadanaya let me go with that that's beautiful right okay beautiful right there okay kaasoo iska qaadanaya oh that's too deep that's too deep let me take this one okay colorkaas iska qaadanaya colorka markaan qaato intaas aan sameeyo hooshii weli waxba inooga dhiman fari kama qodno tan oo iska qarinaya halka qoraalka muuqdo waa bishii moogtahay waa iska qarinaya waxaan leeyahay
ama halkeeda iska taala iska wadahay halkan ima marka intan marka waxaan rabaa halkan haddaa u fiirsato ayaamaha muxuu ahaa jimcada iyo sabtida iyo axadda fiiri qaybta madow ayaa saaran ya sidaas iyo mataqaana kalarka madow saaran waxbana laguma qorayo marka taasaan rabaa hadda inaan sameeyo marka taas sameynaa marka qaabka lagu sameeyo qaacido way iyadana conditional formatting ku sameynaa conditional formatting waa taqaanaan halkan aan imaanaya okay halka markaan imaado okay halkan aan imaanaya marka waxaan sameynayaa waan highlight gareynayaa areagan oo dhan ilaa raas dhan highlight gareynayaa waxaan tegayaa formatting ama conditional formatting aan tegayaa anoo halkaas home jooga aan conditional formatting markaan tago halkan aan imaanaya new rule aan dhahayaa new rule markaan waxaan qaadanayaa kan u hooseeyo oo ah use a formula to determine which cells to format so halkan aan imaanaya marka waxaan ku format gareynayaa halkan aan formula ku qoranaya fiiri hale equal text ayaan qorayaa open bracket markaan qoro waxaan imaanayaa kowda bisha markaasaan tuujinaya markaan tuujiyo F4 aan hal mar taabanaya hal mar markaan F4 taabto waxaan leeyahay comma dan waxaan dhahayaa double speech marks dd 3d aan taabanaya double speech mark aan dhahayaa bracketkii aan xirayaa waxaan dhahayaa equal to waxay la mid tahay double speech mark Sunday aan qorayaa sun then double speech mark aan qorayaa haddana aan saaraya okay markaasaan waxaan leeyahay kalarka aan ka rabana halkan format aan taabanaya kalarka aan ka rabo fiil aan tegayaa kalarka aan ka rabo kaas weeyaan aan leeyahay 1 2 3 kan 4 aan qaato okay so okay aan dhahayaa marka qaabkaas uu noqonayaa waa ka uu wada highlight gareeyay kalaradii aan idin tusinayay uu ku sameeyay waa kuwan laakiin hadda waxaan sameynaa oo kaliya axadda haddana waxaan ku daraynaa sabtida sidoo kale soo sida ay u highlight garaysan halkan aan tegayaa waxaan tegayaa new rule waxaan tegayaa use formula halkan aan ku qorayaa equal text marka ku qoro open bracket then isla meeshaan taabanaya taariikh 1 hal mara F4 taabanaya comma and dhahayaa double speech mark ddd double speech mark close the bracket ka xir is equal to waxaad qoraysaa double speech mark Saturday SAT oo Saturday qoraysaa double speech mark gelinaysaa okay so asagana sidoo kale format waxaan ka rabaa kan afaraad aan ka rabaa sidii tan kale oo kale so waxaan leeyahay okay show marka qaabkaas uu sameeyaa okay so ka qaada qalbiga okay noocaas ay noqonaysaa so marka ay noqoto dabcan taariikhda taariikhdooda hadaan rabo waxaan ka dhiganayaa gaduud aan ka dhigayaa ama kalar casb taariikhda iyaga dul saaran ayaamaha saddex aan calaamadeeyay korkooda saaran labadooda meel kasta waxaan ka dhigayaa okay waxaan ka dhigayaa xasaan baan ka dhigayaa halkaas okay gaduudkaasaan ka dhigayaa gaduud so hal mar oo kale inaan senta garayaan rabaa waan senta garaynayaa okay ayaamahan ayaguna waa iska senta garaynaa I think they should be centered ayagana senta garaynaya okay perfect so qaabkaas marka taariikh kasta oo ku aadan Sunday oo axada iyo Saturday oo sabti ah gaduud weeyaan waa color kale okay so one here iska bold garaynaya bold so that looks fine okay perfect sida markaan sameeyo hadana waxaan sameynayaa alaabtan fiiri marka halkan oo kale meel aad click dhahdo oo qaabkaas u tuujiso waxa ku soo baxayo boxkan oo drop down kan sameynayaa asagana data validation ku sameynaa sidoo kale marka highlight aan wada dhaxo waxaan dhamaantooda highlight baan wada dhaxayaa highlight markaan dhaho waxaan tagayaa data buttonkaas aan tagayaa halkan aan qodayaa data validation halkan yaraan qodayaa waxaan la soo baxayaa list markaan la soo baxay inta waxaan ku qorayaa p a l small letter ay noqotay okay a l s marka kuwan weeyaan kuwan aan meesha gelinayaa present absent leave iyo sick intaasaan gelinayaa sick oo xanuunka
so okay iska dhahaya okay mar haddaan dhaho kan way soo wada galayaan marka waa kana boxkii meel kasta igu jiraan okay meel kasta igu jiraan perfect intaa markaan sameeyo haddana waxaan sameynayaa ayagii oo markii la qoro color la soo galayo meesha conditional formatting kaleeto xarfahaas markii la qoro waxaan rabaa meesha inay color la soo galaan oo meesha qurxanaato sida hadda sidan oo kale mid walba color gaara inay la soo gasho okay walaalaha marka sidaa loogu qoro okay meeshaas baa noogu qoran laakiin inaan format gareeyaan rabo eedaas color ay la soo gasho meesha marka sidoo kale mar labaad sidaas waxaa la gareenayaa dhammaantooda waxaan tegayaa home and then conditional formatting conditional formatting markaan tago halkan aan tegayaa equal to okay dhahaya halka waxaan ku qorayaa b ugu horeysa Soomaa b-dan ay ugu horeysa okay so b-daas waxaan dhahayaa waxaan rabaa inay noqoto colorkeeda inuu noqdo inay la soo gasho waxaan leeyahay gaduudkaas inay la soo gashaan rabaa ama cagaarkaas inay la soo gasho so okay aan leeyahay mar labaad kulli xabadan u sameynaa equal to weeyaan waxaan leeyahay inay la soo gashaa maadaama absent uu yahay gaduudan ooga dhigayaa wax la nacabiyo weeyaan okay perfect waka hadda fiiri eedii meesha ugu sii qornaa jawa is gaduudka meesha ku soo galaysaa mar kale sidoo kale waxaan ugu xigo l waxaan leeyahay inay noqotaan rabaa maybe something like this wax noocaas oo kaleeta orange okay then waxaa haray hal xabaa inoo hadhay we are almost there guys not too far then halkanaan tegayaa waxaan soo qaadanayaa blue aan iska soo qaadanaya okay blue aan iska soo qaadanaya then okay so hadda marka meel kasta aan taabano haddaan qorno haddaan hadee okay qofka u horeeya oo kale hadaa halkaa taabto b la soo gelaya b okay haddaan qaato gaduuda la soo gelaysaa haddaan qaato l ka colorkeeda la soo gelaysaa haddaan qaato s ka colorkeeda bluega la soo gelaysaa okay so marka waxaan leeyahay okay control z no come on man okay so noogu jiraa marka haddaan that's perfect okay now intaas markaan sameeyo kadib halkan marka calculation formula-ga aan gelinaya because qof walba horta aan gashto meeshan halkan bal aan ku xareeyo shaqaale halka ku xareenaya employee waxaan dhahayaa employee shaqaalaha koowaad shaqaalaha labaad oo kale iska qoranaya then waan iska jiidayaa ilaa shaqaalaha inta tirada ay gaarayso soo ka ilaa shaqaalaha labaatanaad magacyadoodii camal halkan ii metelaya magacyadii halkan aan ku qoranaya metelaya so halkan marka formulaan gelinaya si ay igu xisaabaan shaqaale kasta markay bisha dhamaato meeqaa b u haystaa oo present u ahaa meeqaa absent ugu jirtaa meeqaa leave ugu jirtaa meeqaa siga ugu jirtaa okay formula halkan gelinaya marka halkan aan imaanaya okay markaan equal markaan count if aan isticmaalayo formula aan isticmaalayo waxaa count if markaan sidaa u qoro waxaan imaanaya halkan insert function kan click aan leeyahay rangeka waxaa waaye markaa taariikh 1 maxaa ku aadan boxkana ku aadan taariikh 1 Soomaa oo employee-gana ku aadan shaqaalahan linkiisa waa ka moogtahay halkan taariikh 1 uga bilaabanaysa soo halkaasaan dhab siinaya ilaa halkaasaan wadaya meesha ku dhamaado meesha kaasa range ah intana waxaan dhahayaa b-da leen ku qoraa bis okay so perfect okay aan leeyahay so hadda everywhere waxa uu ugu jiro moogtahay kan kale ku xigo sidoo kale equal count if markaan qoro halkan aan imaanayaa insert then sidoo kale halkan waa isagana rangekiisa intaas waa isla meesha iyadana moogtahay halkaa waxaan ku qoraa laakiin hadda baan ku qorayaa absentigi waa okay kan ku xigo sidoo kale equal count if and then range insert halkaa ka bilaabo halkaa gee waxaan ku qorayaa marka l weyaan taa okay say okay xaggana waxaan ku qorayaa count if baa ku qoro insert rangekeyga wuxuu ka bilaabanaya cellka koowaad oo taariikh 1 ku aadan then halkana s aan ka dhigaya marka waa sig okay so waa ka marka
so halkan aan highlight gareynayaa ilaa halkan aan highlight gareynaya waa jiidayaa halkaasaan geenayaa halkan markaan geeyo marka waa ka fiirjaa marka formulaga shaqaalaha koowaad oo kale hala ugu jirta hal present waa tii halkan noogu qorneed kana asigana mida ugu jirta absent waa ka eeda si halka kusii qoran okay so already uu shaqeynaya dynamic way una noqday so so that's what we are going to do, guys. So okay أنا meeshaas color ka saaraya wax kale ma sameynaa okay perfect this one white okay perfect okay so waa diyaar intaas weeyaan hadda marka waxaa hadda meeshan wax gelinaba meesha la say halkan options gelin random iska gelinaynaa maybe this one is present waaye kan sidoo kaleete you know kan wuxuu ahaa b mabadweynba b present waaye present waaye okay ama macaa saas iskaga qaadon dhab okay wuxuu jiraa iska geli raaf ana waan kuwan fiirinayna inuu noo shaqeynayo okay so okay marka haddaan rabo waxaan sameynayaa xaggana s iska dhabo maya okay s iska qaado inta waxaa iska qaadataa b halkan macnaha aan iska buuxinaynaa just for the sake xaggan b okay xaggan leave iska dheh xagga waxaan dhahayaa okay this one is maybe leave this one b waxaasaan iska gelinaya marka b okay qaabkasi kugu shaqeynaysaa marka haddaa iska jiida marka let me just for the sake iska jiidayaa ama halkan haddana b okay halkana noo geliyay waa iska raaf macnaha waan tijaabinaynaa b iska tijaabinaynaa s halkaasan is on leave b okay b okay so so maybe haddii marka quruxdaasay noo noqonaysaa qaabkaasay noqonaysaa let's do like this okay qaabkaasi ku marka quruxdaasi ku noqonaysaa mar walba markaad geliso marka kalarkii markuu buuxsamo kalaradii iyaga sidaas musubil galay okay quruxdaasi noqonaya now waxaa ii haray marka intaa magacii baa ii haray haddaad fiiriso halkan waxaa ii haray magacyadan ayaa ii haray inaan halkaas saaro oo keliya intaas bisa ii haray marka waxaan sameynayaa insaadan dhaa meeshaas shape baan rabaa inaan keeno waan qurxinayaa waxaan leeyahay insert shape-kana soo qaadanaya kan aan soo qaadan rectangle-ka noocana round rectangle ala click taasan click aan soo qaadanaa dan halkan ku sawiraya okay halkaasaan ku sawiraya waxyar darsanaya halkan okay perfect intuu iskala dhan tahay inta waxyar okay now that's too much okay waxyar okay perfect intaas markaan sameeyo and then fiilka waan ka bedelaya let me take something like that colorkaas noocaas qaadanaya iskana iska qataa whichever okay let me take colorkaas qaadanaya wala labada color is weegin let me different kaas qaadanaya okay and then shape outline oo ka saaraya shape outline waan ka saaraya no shape outline leeyahay and then effective waxyar preset kan ku daraya halkan qaadanaya preset 3 qaadanaya then right click
edit halkaas waxaan ku qoraya marka employee attendance tracker. Okay, employee attendance tracker, and then probably haddaan rabo waxaan ku qoraya organization nameka aan ku qoro let me say maybe Awesome Foundation. Okay, Awesome Foundation. Okay, aan iska qorano Awesome Foundation, hay'adda magaceeda camal oo kale Awesome Foundation. Okay, okay waa tusaale then wax yar size-ka ku daraya size-ka and then waan center gareynayaa and then maybe which color iska qaataa colorkaas baan qaadanayaa and then colorka kan hoose iska qaada and then bold and then into impact. Okay, impact I like that fontigaas aan jeclahay, so that is it. So waxyaaran yareynaa so that I'm actually English wada galaan. Okay, weli ma wada gelin, so that means let me add hal xaba inta isaga darsanaya, so that's not a big deal. So right, halleena ku darayaa halkan ina daaro isaga darsanaya, markaan ku darsado soo ii gelaysa marka meesha ila ekaanaysa. So haddaan rabo intaas oo ka yar weyneyn karaa. Okay, that's fine. Okay, okay, aad iyo aad. So inta markaan sameeyo haddana kanan aan tuujina, markaan tuujino xada control D labu noqonaya, labada markuu noqdo labadaas waxaan rabaa inaan qaato waay iska tiraya markaan iska tiro halkan aan qabanaya waan gaabinaa mid gaabana ka dhigaya. Okay, so halkan aan gashana asiga sankshanaya waxyar intaan u goynaya then qaabkaasuu noqonaya. Okay, qaabka markuu noqdo right click aan leeyahay say edit waxaan ku qorayaa bisha July. Okay, July 2018 aan qorayaa maybe sorry then July 2018 okay, that's fine. And then this one perfect. Okay, July 2018 ayaduna impact ka dhig maybe that way. Okay, impact have I done? Just click there, impact. Okay, impact that's good. Okay, and then bold, and then that's fine. waxaad moodaa waxyar maadaama gadaal aan u celiyay I'll just make it a small one so that it looks very nice. Perfect. marka alaabtaada waa taas diyaar weeyaan. waxaa ku dhiman marka inaad meelahan aad xirtisaan wax lagu qorin. hadda meeshan oo kale qalad oo iga buuxsanta markaan jiiday markaas looma baahna in wax ku qoran yihiin meeshaas. Okay, just undo, delete aan leeyahay, delete meeshaas in wax lagu qoro looguma talagelin. marka si aad oga ilaaliso qofka in qofka wax lagu qoro in si aad oga ilaaliso inaan wax lagu qorin I'm sorry, I'm so not concentrating. Okay, si aad oga ilaaliso inaan wax lagu qorin marka waxaad samaynaysaa waa protect garaynaysaa. So let me come here, hal meeshaasaan taabanaya, right click aan dhahaa. meeshan markaan taabto cellska dhan ayay highlight garaysa. so right click aan dhahaa, right click markaan dhaho waxaan leeyahay format cells and then maybe protection. halkaasaan ka saaraya, marka ka wada saaraya. markaan ka saaro qaybahan waan kusoo celinaya marka. Okay, qaybahan tan oo kale ma rabo in la taabto iyadana. right click aan dhahaya, format, don't just iskaga hay, keep control and then enter. qaybahan dan waxaan rabaa inaan xiro oo aan la taaban karinba, waxbaba lagu qori karinba. Okay,
So this actually becomes a real document or macol. Okay, right click, format cells, protection kusoo celi marka kusoo celina locked marka intaas ahayd samayso marka waxaad samaynaysaa right click halkan ama kor meeshaad aado protect cell maybe ka hore checkinka ka bixi halkan waxaa qortaa 2018 asaga qoran aniga waa passwordkayga and then 2018 common password blocked. Okay, perfect. So hadda meelahan dhan hadda lama taaban karo marka meelahan lama taaban karo tiradan lama taaban karo intana lama taaban karo waxa lagu ma qori karo so locked weeyaan. Okay, locked weeyaan. So aka alaabtaadi waa diyaar markaa so iyadoo sidana marka save garaysanaysaa hadhow marka meel alla meeshaad wax ku qorto halkan adaad qofka waan wale biyada u qorto tirada u gelaysaa dharrac hadhow marka alaabta marka bil walba waa dhamaystiraysaa waad aragtay hay'adaha inta badan waxay sameeyaan buugay waxay dhigaan meesha laga soo galo buugaas dadka markay soo galayaan isku qoraan magacooda ku qoraan so qofka haj arka waxa loo baahan yahay maqribka intuu baxo marka shaqada dhamaato shaqada laga baxo marka shaqaalaha shaqada ka baxaan waxa la rabaa qofka muxuu ahaa intuu baxo uu soo qaado buugii uu hadana imaado buugii halkan ka buuxiyo qof walba iyo wuxuu inuu imaaday halkan uu ka buuxiyo hadhow markii bishii ay dhamaato oo payment salary la gaaray 28 inuu kanoo dhammaystiran intuu print garayo uu geeyo finance-ka si nin walba lacagtiisa inta uu ka haboon uu qaadan karo shaqaysta loo siiyo marka cashirka halkaas kusoo gabagabeynaya waxaan filayaa inaad si fiican uga faa'iidaysateen fadlan muxuu ah bogeena like saar boga Wamo Tech si dadka reebamaha waraa like hala saaro oo hala subscribe gareeyo oo wixii fikir iyo talo iyo tusaale waxa xagga hoose inoogu dhaaf. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.